madashan oo loo fadhiyay xiritaanka kalfadhiga lixaad ee golayaasha sharci dejinta dalka ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu kaga dhawaaqay in awoodda dib loogu celinayo dadweynaha si ay iyagu u doortaan adeegayaashooda hogaamin doona. madaxweyne Farmaajo oo ay hareer taagnaayeen guddoonka labada aqal ee baarlamaanka, ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa bulshada iyo mas'uuliyiinta kale ee ka soo qayb gashay munaasabadda ku hor saxiixay sharciga doorashooyinka dalka oo ay dhawaan ansixiyeen golaha shacabka iyo aqalka sare. bismillaahir rahmaanir rahiim. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed markuu arkay qodobka 87 farqada koowaad iyo farqada labaad ee dastuurka, markuu arkay qodobka 9aad xarafka fa ee dastuurka, markuu arkay warqada gudoomiyaha golaha shacabka, baahida loo qabo in la ansixiyo lana meel mariyo sharcigan, waxa uu madaxweynuhu soo saaray sharcigan qodobka koowaad. laga bilaabo markuu madaxweynuhu saxeexo sharcigan waxaa si rasmi ah loo ogolaaday sharciga doorashooyinka heer federaal. marka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku saxeexo sharcigan waxaa loo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeed waad aragtaan in dib lidinku soo celiyay awoodiinii, in gacanta lidin soo galiyay, in golaha shacabka aqalka sare labadaba iyo anigu aan caaw halkan ku seexay inaan doonayno in aad gacanta ku qabsataan awoodiina, aad ugu codeysaan xisbiga aad doonaysaan iyo shakhsiga aad doonaysaan. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in baarlamaanka 10aad ee qaranku ka tilmaaman yahay baarlamaanadii dalka soo maray marka laga tusaale qaato tirada sharciyada muhiimka ah ee meel mariyeen iyo sida ay u kor joogteeyeen howlgudashada hay'adaha dawladda. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo baarlamaanka labada aqal oo runtii kalfadhiga hadda ugu dambeeyay lixaad shaqo aad iyo aad runtii loogu baahan yahay oo muuqda u qabtay. khaasatan aan wax ka sii raahdo baarlamaankan 10aad anigu waxaan aaminsanahay inaad ka duwan tihiin kii 9aad iyo 8aad iyo kuwii ka horeeyay. waxaa uga duwan tihiin runtii waxaa qayb ka tihiin ama aad hormood ka tihiin xasilinta iyo deganaanshaha dawladnimo. waxay ka fogaadeen wax alla wixii dhibaato u keeni karay dawladnimada iyo ama dib u dhac u keeni karay. waxaad arkaysaan oo leeyahay waa la qabtay, waxay ka ahaayeen hormood iyo ka ahaayeen horseed ayay ka ahaayeen. la'aantood deganaashahooda iyo xasiloonadooda iyo wada shaqayn la'aantoodana wixii la qabtay lama qabteen. marka waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. tan labaad, wada shaqaynta dawladda dhexdeeda ah. gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ku hadlay afka labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa dul istaagay doorka ay ka qaadatay wada shaqaynta golayaasha sharci dejintu meel marinta sharciyaasha dhaxal reebka ah ee lagu ansixiyay ilaa iyo haatan fadhiyada baarlamaanka 10aad ee jamhuuriyadda. markuu horeyso waxaan rabaa inaan u mahadceliyo aqalka sare ee baarlamaanka oo runtii juhdi fara badan ku bixiyay shuruucdii aan u gudbinay soona dhamaystiray waqtigan xaadirka ahna wax sharci ah oo baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka la yaala ayna jirin. isla markaasna gudoomiyaha golaha aqalka sare waxaan ugu mahadcelinayaa in runtii asagana si labada aqal ay wada shaqeeyaan juhdi fara badan uu ku bixiyay. taana guusheeda waa la dareemi karaa. shuruuc fara badan oo golaha shacabka ay ansixiyeen oo aqalka sare loo gudbiyay shuruucdii isbeddelka waxaad dareemi kartaan
shirka annagii ugu dambeeyay inta sharci oo ka soo noqotay aqalka sare oo la ansixiyay waa mid ka mid ah habeenada taariikhiga ah ee soo maray sooyaalka dhigaal taariikheed ee dowladnimadeena dhawaan 60 jirsanaysa iyadoona hadda loo tabaabushaynayo sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed xaq ugu yeelan lahaayeen doorashada matalayaashooda siyaasadda. Shucayb Maxamed Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.